shirweynaha saddexaad ee akademiyad goboleedka af Soomaaliga ee AGA ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti. Shirkan oo ay ujeedadiisu ahayd in lagu doorto gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka akademiyad goboleedka af Soomaaliga ee AGA. doorashadan oo ahayd mid qarsoodi ah oo loo isticmaalay sanaadiiq ayaa waxaa codeeyay golaha guud ee akademiyad goboleedka afka Soomaaliga ee AGA waxaana u tartamayay 6 musharax. doorashadan oo saacado badan qaatay ayaa waxaa loo doortay gudoomiyaha cusub ee akademiyad goboleedka afka Soomaaliga Saciid Saalax Axmed, halka gudoomiye ku-xigeenka loo doortay markii labaad Dr. Cabdinaasir Macalin Ibraahim. warbaahinta qaranka ayaa waxaa u suurta gashay in ay wareystaan gudoomiyaha cusub iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee akademiyad goboleedka af Soomaaliga ee AGA. wax badan iguma soo kordhin dareenahay marka loo eego akademiyada tan iyo jiritaankeeda waa waxaan ilaa maalintii la asaasay soo dhex joogay intaana aan ka hawlgelayay oo aan meel ay ku shirayso iyo hawlay leedahay la fulinayso aanu midna ii cusbayn ku doorashada maantana wax weyn iguma soo kordhin xagga dareenka waayo waa taydii aan awalba ku dhex jiray marka waa ku faraxsanahay in saaxiibaday i tuseen inaan xubin ka mid ah oo wax la qaban karta aan ahay aniguna aan iyaga uga marti ahay in ay wax ila qabtaan. maxaad ku soo kordhinaysaa maadaama hadda aad noqotay xubinta ugu sareysa ee guddiga? laabud muddo hadda 15 laga soo qabto ayay la'ayd qorshe marka waxaan soo kordhin oo diyaar ah qorshe hawleed la dhigay waxaa diyaar ah miisaaniyad qorshe hawleedkaas u baahan yahay waxaa hadda la wadaa hawlwadeenadii iyo qaabkii fulin lahaa hawsha iyo goobaha cilmi baadhista oo la wada suntay oo hawlaha ay qabanayso ah waxaa soo dhami ma jirin marka kuwii baa la tixgelinayaa oo iminka wax la qabto oo waxqabad oo wadad toosalele ah. bismillahi raxmaan raxiim marka hore waxaan adigu faraxsanahay dalka Djibouti oo ah dalkaygii inaan ku soo laabto anoo muddo fog ka maqnaa sharaf ay tahay waliba anoo uga soo qayb galay shirweynaha labaad shirweynaha saddexaad ee akademiyad goboleedka af Soomaaliga shirweynihii saddexaad inaan ka soo qayb galo oo aan nasiib u helay inaan u tartamo kaalinta gudoomiye ku-xigeenka muxuu ahay gudoomiye ku-xigeenka akademiyada taasoo nasiib aan u helay inaan ku guuleysto waxay ila tartamayeen walaal ah oo runtii aad u qiimo badan waxay ahayd hadduu asaga guuleystana inay noqoto in anoo guuleystay hadda aniga guuleystana asagoo guuleystay sababtoo waxay tahay waxaan u soconnaa hal ujeedo yaan ka wada shaqaynaynaa waxay tahay sidii loo horumarin lahaa akademiyada iyo afka Soomaaligeed oo ah af ka dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay degto af ka dhaxeeyo runtii waxaa sharaf ii ah xaruntii lagu aasaasay akademiyada oo ah Djibouti oo runtii heelka afka Soomaaliyeed uu ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo la taliyihiisa dhinaca arrimaha dhaqanka balalo inay runtii kaalin fiican ay ka qaateen hirgelinta iyo suurtagelinta shirweynaha maanta aan ka soo qayb galnay si wanaagsan oo noogu dhammaaday farxad iyo sharaf iyo reereen dareemaha waana mahadsantiin. Cabdi Jabbaar Sayfuddin warbaahinta qaranka Djibouti.